عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك walaalahayga Soomaaliyeed aad baan idin salaamayaa meel kasta dunida ka joogtaan marka la ku soo dhawaada akhyaar madbaqa xubulcaan waxaan idinka mahad celinayaa fariimaha ducada iyo dhiirigelinta isugu jira Allah idinka abaal mariyo aad baad mahadsantiin waxay tahay dhiirigelin waxa kale maanta soo dhaweynayaa asxaabta soo booqatay channelka ee ku cusub soo dhawaada aad baad mahadsantiin inaad ku soo biirteen asxaabtii noola joogtay hasmartiyeeni waxaan idin xasuusinayaa inaad channelka subscribe gareysaan channelka ama gambaleelka taabataan si notification ku idin soo galo markasta oo wax soo dhigno fiidiyoda like gareeya hadii aad jabiyaan siina share gareeya oo la wadaaga ehelkiina asxaabtiina cid kasta oo jeceshihiin oo danaynaysaan in ka faa'iido aad baad mahadsantihiin hadii inta laga soo gudbo asxaabe maanta waxaan sameyn doonaa beer yar baan sameyn doonaa oo markaa sida sandwich oo kale roodhi dhexda laga gelinayo marmarka aanad hawl badan inaad gasho aan jeclayn afur yar oo fudud oo 20 daqiiqo kaliya aad ku sameysan karayso weliba 20 daqiiqana ka fudud sababta beerku dad badan ma qaato iyo waqti badan ayaan sameyn doonaa marka halka waxa weeyaan xabad beer ariya oo soo jarjaray halkaana waxa igu jira musradol basal ah toon yar weeyaan waxa ka sareeya halkan waxa igu jira xawaashidii marka waxay ka kooban yihiin halka milix yar bay igu jirta halka waa hurud halka waxa weeyaan herer weeyaan oo basbaas cas geedo maxaa la dhahdaa filfil iyo xawaashi yar oo kale aan isku darsaday insha Allah marka dib loo wadaagi marka waxa ka bilaabanaa saliida dab ku shubi doona insha Allah marka aan saliida dab ku shubay waxaan ku shubayaa basashii iyo haytoonti marka basasha ay yar shiilmi doonta iyo toonta insha Allah بدي ربطي أدح دقيقة في قلتي لي ربح خلاص marka basashii kunni yar baan waxay noqotay kalarkeeda dahabiya marka waxaan ku ridayaa beerkii baan markaa ku ridi doonaa iyo barbarooni waan soo walaaqayaa marka aan beerkii iyo ku ridi barbaroonigii xawaashidii iyo milixdiina ku ridi doonaa marka intaas markaan beerka ku riday gacanta kama joojinayo waan walaaqi doonaa si ayna iga samaynin dheecaan macnaha qoyaan yar marka qoyaan yar waxaan doonayaa isagoo qalalan inaan ka qaato marka ilaa inta bislaanayo maqaacada la dul taagnaanayo yar waxa ku jira xawaashida basbaas yar oo cas iyo hilib marka kalarka kaleeyo marka ka dhigayaan kalar yar oo qurux badan basbaas casna ma sha Allah dad macaaninayo sidaa marka beerkii yara bisayl ku yahay xawaashadiisii iyo wixii wada leeyihiin marka sidaa ku dhameeyay basal yar baan dhex dhigayaa hilibkii basasha weeyaan iyo dambiil yar soo sameyn doonaa yar oo saliidana waan ku shubayaa xaqiiqaayna waan ku dhameey doonaa insha Allah marka beerkii aan sameeyay roodhida ma dhex gelin doonaa sidii sandwich oo kale
marka waxaan ka saarayaa basashii yareed iyo qiiqii. waxaan ku ridan doonaa saxniga. waxaan sameynayaa roodhida ayaan dhexdayaan sidaa ugu yara diirdiirsanayaa wax yar. inta yar dhanaankii yaraayo wixii hoosta ku hadhoo dhanna maasha Allah roodhidiisu soo raacayaa oo waxa kaaga haraya ma jirto. marka dhadhan yar iyo quruxna way noqonaysaa. markaa waxaan sameynayaa salad yar iyo basal yar bay ku jira halkaa. saladkaa yar iyo basashaa yar baan hoosta usoo dhigayaa. waxooga habantaa chips ma soo dhexi beerkana waxooga har isagana. qofkii maanta soomanaa markuu intaa yar uu cuno kale waxba ma oga. wuuna culus yahay beerku marka qofka intaa markuu cuno afur kale uma baahna. ما شاء الله ساسو صابحة عميد شيراي بيركونا وساعة قلنا نقون كريا قراءة قلنا ونقون يا يو وقت جيلا بعض دي لدنو ربع عشان يا انت ساعة عشاء الآدي تقول فيها لكن ساحبنا هذه لو بحضر الاستعمال كريا أبدو بنا تنتم داوني سيد من بلا ولا دما أبدو نبي سلام يا ودنا تنتهين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.